qofka uu fiican yahay inuu iska lahaado guri fiican, gaari fiican, maal fiican, hanti fiican. laakiin ma garanaysaa shay ugu muhiimsan oo maal iyo guri iyo gaari iyo hanti ka fiican? waa cilmi, waa aqoonsi. shay ugu fiican qofka inuu lahaado waa aqoonsi. hadduu qofka aqoonsi leeyahay, maal uu yeeshanayaa, cilmi, hanti, gaari, guri, wuxuu rabo waa imaanayaan. maxaa yeelay cilmiga iyo aqoonsiga aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. maxaa yeelay qofka hadduu cilmi leeyahay oo aqoonsi leeyahay, waxa uu furmaayo opportunities badan ayaa u furmaayo qofka. wuxuu arkayaa wax weligiisa arkin, nolol cusub ayuu helayaa qofka. maxaa yeelay aqoonsiga horumar fiican ayuu leeyahay. qofka aqoonsiga leh oo cilmiga leh iyo qofka aqoonsiga lahayn oo cilmiga lahayn isku mid ma aha. marka maalka iyo guriga iyo gaariga wanaagsan iyo lacagta iyo hantiga dhan aqoonsiga ka fiican. ani sidaa ma ogeen aniga. sidaan waxaan ogaaday 3 sano ka hor ogaaday. 3 sano ka hor waa iska socday ilaa aan ka arko qof oo taliya. waxaana kulmay qof ila taliya oo mentor ah, oo iwaaniya, oo italageliya arkay. qofkaas markaan arkay, qof labaad ayaan arkay. qof labaad ayaan arkay oo italageliya, oo inasiixeeya. dadkaas nolosha ayay badileen. qofka duu leeyahay mentor, qof oo nasiixeeya, oo qof hogaamiya, oo qof horseeda, noloshiisu badilaya. maxaa yeelay nolosha weligay sidaa ma ahayn aniga. qofka noloshiisa asigaa bedeli karo. marka waxa waaye qofka hadduu aqoonsi leeyahay, oo tababar leeyahay, oo cilmi leeyahay, oo xirfad leeyahay, hadduu wax bartay oo haasto qof nasiixeeya, qof hogaamiya, hadduu haasto, noloshiisa wuu isbedelayaa. marka igu soo dhawaada, waxaan rabaa in aan ii sheego 4 qodobood oo aniga aan bartay. dadka i nasiixeynayeen, dadka i hogaamiyeen, 4 qodobood aan ka bartay aan rabaa ininka ilaa nii baro oo nina wada qaybsado. marka hoos waxaan ku dhaafayaa link aan ku dhaafayaa. linkigaas ku dhufta. linkigaas markaa aadiin, waxaad aadaysiin website-ka aadaysiin. website-ka markaa aadiin kadib waxaan ka hadlaynaa 4 qodobood ayaan ka hadlaynaa. 4 qodobood ayaan ka hadlaynaa. aad iyo aad ayuu muhiim u yahay. 4 qodobood maskaxda ayuu bedelay, noloshay ayuu bedelay. ma xuma qofka inuu raadiyo hanti, lacag, maal, gaari fiican, guri weyn. waxaan qofka inuu raadiyo ma xuma, waa okay. laakiin waxaa kasii fiican aqoonsi, cilmi, nolol fiican. qofka caafimaad inuu yeesho, qofka inuu ahaado qof faraxsan oo happy ah inuu ahaado, oo jirkiisa korkiisa caafimaad leh. kuwaan kana kasii fiican. marka website-ka hoos ku dhufta. waxaan ii tusayaa 4 qodobood oo noloshay bedelay ayaan ii tusayaa. 4 qodobood oo noloshay bedelay ayaan ii tusayaa. waxaan rabaa aniga noloshiina inaan bedelo. mugdi aniga ku jiray 3 sano ka hor, 4 sano ka hor mugdi ayaan ku jiray. mugdigaas markaan ka baxay, nuurka arkay. nuurka markaan arkay, iftiinka markaan arkay, ninkaa rabaa cilmi inaan ii yeelo.
oo nii baro faa'iidada internetka ku jira. Internetka faa'iido badan ayuu leeyahay, marka faa'iidadaasaan rabaa inaa nina wadaagsado. maxaa yeelay qofka aad iyo aad u muhiim u yahay inuu lahaado qof hogaamiya oo qof horseeda, qof macallin u noqdo oo qofka waxa tuso aad iyo aad u muhiim u yahay. marka ku dhufta linkiga hoos website-keena aadaysiin marka website-ka marka aadin waxaan tusayaa 4 qodobood aad u baahan tahay aad tusayaa in bara oo noloshaada bedeli kartid. marka hoos ku dhufo, qofka noloshiisa wuu bedeli karaa, ha is dhihin nolosha ma bedeli kartid. marka qodobadan aan barayo ma ahan qodobo is leedahay macnaa berito ama isbuucda soo socda taajir ku naqanaya ama bisha soo socda taajir ku naqanaya, ma ahan. qodobadan aan barayo oo ni tusayo wuxuu u baahan yahay dadaal, ayuu u baahan yahay. qofka waa inuu ahaadaa qof dadaal badan, qofka waa inuu ahaadaa qof macnaa ruuxiisa rabo inuu bedelo. ha is dhihin macnaa sheekadan waa been. aniga waxaan u maleyn jiray inuu been yahay, u maleyn jiray 3 sano 4 sano ka hor. laakiin markii macalinka aan helay, qof oo hogaamiyo markaan helay, noloshay way isbedeshay. marka inaan la qaybsadaa waxaan aniga bartay linkiga hoos ku dhufta. linkiga hoos markaa ku dhufatiin website-ka aadaysiin 4 qodobood oo aniga bartay ayaan la wadaagayaa, sheegayaa.